assalaamu calaykum. Bal qiyaas Itoobiyada maanta raadinayso inay xoog ku qaadato dhulkayga. Xitaa 40 sano ka hor midowgii Soofiyeedka ayay ka barisay inay aniga iga ilaaliso. Haa, waxaan lahaa ciidanka saddexaad ee ugu xooga badan Afrika oo dhan, tiro ahaan iyo qalab ahaanba. Waxaan ku sigtay inaan ku duulo oo aan kala qaybiyo. Sidoo kale, bal qiyaas dadka maanta la ildaran faqri iyo gaajo, zakada ayay u diri jireen si ay u quudiyaan waddamada Carabta. Sidoo kale, bal qiyaas 50 sano ka hor waxaan la dagaalamay Burtuqiiska, isla dagaalkaana waan kaga adkaaday. Anigu waxaan ahay Soomaaliya, tanina waa qisadayda. Taariikhda weydii, aniga waxaan ahay. Maanta Soomaaliya idinla hadlaysa. Muuqaalkan dad badan gaarsiiya. Laagta iyo sheerta waa dhinaciina. Dhulka Uduga iyo Carafta wuxuu ahaa magaceygii hore sababtoo ah waxaan ahay waddan qadiimi ah. Baaritaano badan ayaa xaqiijiyey in aan ka weynahay 9,000 oo sano. Mana garanayo taas inay dareentay faraacintii. Waxay rabeen geedihii ka bixi jiray dhulkayga. Taasna waxay ku caddaynaysaa inuu dhulkayga ahaa mid barwaaqo oo aanan cidlo ahayn sida maanta ay tahay. Meesha aan ku yaalana waxay ka mid ahayd waxyaalihii badnaa ee beddelay taariikhdayda. Aan sii wadno sheekadayda si aad u ogaato waxa igu dhacay. Waxaan ka mid ahaa waddamadii ugu horreeyey ee Islaamku soo gaaro. Hijradii caanka ahayd ee uu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku amray saxaabadii Maka lagu dhibi jiray. Xilligaasna Islaamka wuxuu bilaabay inuu dego dhulkayga oo uu kor u kaco. Laga soo bilaabo qarnigii 9aad ilaa iyo qarnigii 16aad ee miilaadiga. Waxaana la aasaasay saldanadii Cadal 1415, waxayna ahayd saldanadii ku fidisay diinta Islaamka bariga Afrika. Lagana yaabo inaad taqaano hogaamiyaheedii ugu caansanaa Imaam Axmed Gurey. Horaantii qarnigii 16aad ee miilaadigana wuxuu awood u yeeshay Axmed Gurey inuu ka adkaado ciidamadii Kirishtaanka ee boqortooyada Itoobiya muddo 7 sano ah. Xitaa wuxuu qabsaday 3 meelood meel ka mid ah dhulkii Itoobiya. Xilligaas waxaa la ganacsan jiray dowladaha Yurub, gaar ahaan Burtuqiiska, si ay u taageeraan. Axmed Gureyna wuxuu ku jibiyey Burtuqiiska dagaalkii caanka ahaa ee Wafala. Haa, Soomaaliya oo keliya ayaa ka adkaaday Burtuqiiska. Laakiin markii ay waddamadu duqoobaan, waxaa ku habsata kala qaybsanaan iyo colaad ka hor intaanay dhicin. Kadibna reer Yurub waxay bilaabeen socdaalkoodii gumaysiga. Afrika waxay ahayd hadafkooda ugu caansan. Aniguna waxaan ka mid ahaa qaaraddan. Waxay ku qabteen Berliin shirkii caanka ahaa 1885 si ay u qaybiyaan aniga dhulkayga. Waxayna u qaybsadeen sida soo socota. Waqooyiga Soomaaliya ama Somaliland waxaa gacanta loo geliyey Ingiriiska, halka bariga Soomaaliyana uu Talyaanigu qaatay. Jabuuti oo aniga iga mid ahayd waxaa la siiyey Faransiiska. Dhulka dhanka galbeed ama Soomaali galbeed waa la iga qaatay. Kadibna waxaa la siiyey Itoobiya. Sidoo kale waxay iga qaateen dhulalka koonfureed oo ay ku darsadeen Kenya. Dabcanna waxay bilaabeen inay gobolladaas ka abuuraan maamulo iyo nidaamyo iyaga raacsan. Run ahaantii wax badan uma jeedin muddadaas. Dhulkayga waxaa laga arkay ififaallo, gaar ahaan markii la qoday kanaalka Suways oo badda gobolka ka dhigtay xarun ganacsi oo loo kala goosho. Muddadaas abaartii caanka ahayd ee ku habsatay walaalaheena jasiiradda Carabta, waxaan ka mid ahaa deeq-bixiyayaashii ugu badnaa. Waxaana sii waday ilaa bilowgii 60maadkii qarnigii hore. Kacdoonno iyo jabhado ayaa ka soo baxay dhulkayga oo ka soo horjeeda joogitaanka shisheeyaha. Sidaas darteed, xornimadu waxay bilaabatay 1960kii. Waqooyiga Soomaaliya ama Somaliland waxay ka xorowday Ingiriiska. Isla sanadkaas, Soomaaliya waxay xornimada ka qaadatay Talyaaniga. Waxaana dib u midoobay labada Soomaaliya. Soomaaliya oo isu keentay Soomaalida. Halkaana waxaa ka bilowday waa cusub oo taariikheed markii aan noqday dowlad.
kadib markii aan xurnimada qaatay oo ay midoobeen qaybo ka mid ah Soomaaliya. Soomaalidu waxay xukunka ku wareejinaysay si dimuqraadi ah, laakiin keliya muddo 8 sano ah, waxaana afgembi ku qabsaday nin aad wada taqaanaan, Maxamed Siyaad Barre. Waxa uu ahaa taliye adag bilowgii dowladnimadiisa. Waxa uu ciidan ku noqday ciidanka 3aad ee ugu xooga badan Afrika, tiro ahaan iyo qalab ahaanba. Waxaa ka sareeyay oo keliya ciidamada Masar iyo kuwa Nigeria. 70meeyadii, awooddii ciidanka Soomaaliya waxay gaartay meeshii ugu sareysay. 1977 Siyaad Barre wuxuu ku dhawaaqay dagaal cad oo ka dhan ah Itoobiya, xilligaasoo u suurta gashay inuu dib u soo celiyo qaybo ka mid ah Soomaaliya. Itoobiyana waa lagaga adkaaday dagaalka, waxaana la jebiyey jab weyn. Laakiin waqtiga waxaad moodaa inuu yahay cajalad dib u soo noqota. Haddana reer galbeedka ayaa soo dhexgalay oo uu ugu horeeyo Soofiyeedka. Siyaad Barre isagoo isku dayaya inuu adkeeyo xukunkiisa, waxaa ka dhashay gadood iyo caradii qowmiyadaha iyo gobollada Soomaaliyeed ka qaadeen jabkii, taasoo keentay inay ka abuurmaan dhulkayga jabhado iyo dhaqdhaqaaqyo taageero ka helayay dowladda Itoobiya. Xaalka waxa uu sidaasii ahaa ilaa aan ka burburayay dal ahaan 1991 markii la riday ciidanka dhulkayga. Kadibna dhulkayga wuxuu u kala go'ay gobollo. Dhaqdhaqaaqyo badan ayaa samaysmay oo xukunka rabay, kuwo diini ah iyo kuwo kaleba. Sidoo kale dhulkayga waxaa cagta soo saaray ciidamo ajnabi ah sida Kenya iyo Itoobiya oo cadaawad soo jireen ah naga dhexaysay, waxaana ka dhacay gaajo. Dhulkii maalin dunida quudin jiray waxaana uu dhexda u galay dagaal sokeeye, wuxuuna noqday dhulkayga ciwaanka fawdada ilaa 2009 markii ay isku afgarteen dagaalyahanadii Soomaaliya ku sugnaa. Kadib markii ay midoobeen maxkamadihii Islaamka laguna doortay madaxweyne cusub, Shariif Sheekh Axmed, ayaa waxaa bilowday in la sameeyo xasilooni, xitaa haddii ay yar tahay. Laakiin wixii 10 sano socday oo dagaal iyo fawdo ay qaribeen, waxay u baahan yihiin in la hagaajiyo waqti badan. Waaba haddii kuwa kale ay ku ogolaadaan inaad wax saxdo. Markii daciifnimadan i aafaysay, dad badan ayaa arrimahayga soo farageliyey, waxaana isu beddelay ugaarsi. Waxa aanay dad badan iga ogeyn in aan ahay dal nimco badan leh, khayraad iyo macdano badan ay dhulkiisa ku jiraan. Waxaa ii sii dheer kalluun, maadaama aan leeyahay xeeb dheer oo fidsan. Sidoo kale meesha aan ku yaalo oo ah meel istaraatiiji ah, waxaan ku yaalaa albaabka laga galo badda cas, ilaaliyaha waddooyinka ganacsiga ee mara halkan. Waxaas oo dhammi waxay keeneen in awoodo badan ay damcaan waxaan haysto iyo waxa aan matalo. Ameerika ayaa imaaday, kadibna Yurub. Itoobiyana waxay dhowaan damacday inay ka saxiixato Somaliland heshiis ay ku yeelanayso dekedda iyo saldhigga Berbera. Waxaa laga yaabaa in waxa keliya ee wanaagsani ay tahay in dunidu ay xasuusato in qayb ka mid ah uu jiro dhul, dad iyo dal la yiraahdo Soomaaliya oo leh taariikh sharaf mudan in la sheego oo la maqlo.